wajaarka igu wada iibiyeen way ka wada qaxeen waxa la yiri waxaan u iibinaynaa birta dumarkii xaafadayda imka tood shanbaa jiifta way wada dhiciyeen birtaas ay idin sabab bay yiraahdeen oo wallahi oo billaahiya laxaadkayga ma jiro habeenkii marooyin baan isku xidhaa dhabarkaan iska xidhaa lugahan iska xidhaa meel aan iska xidhin jirkayga ma jiro madaxayga maraa ku xidhaa garaac iyo dhibaato iyo xanuun fara badan baan dareemaya dhakhtarka walaan u tagnaaba wuxuuna leeyahay waxa ii saameeyay taawarka antinooyinka inta badan hadda waxa aad bahda caafimaadka ugu walwalsan kansarada laga qaado hadda kale UK oo kale 2019 sanadkan soo dhaafnay antinooyin baa dhulka la dhigay waxaan idin kula dardaarmaya hadii la haydmo ka bulshahan iswacyi geliya meelahaas birahaas ay ka taagan yihiin ka fogaada hataa wax siyaada isku aragtidna la xiriir dhakhtar dadka mas'uuliyiinta ee shirkadaha iska leeyahay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. walaalkiin maxamed cabdilaahi halkaad naga daawanaysaana waa Duxul Media hadaad nagu cusubtahay nagu soo dhaw hada hore nala joogtana aad baad u mahadsan tahay mar walba raayigaaga nala wadaag iyo waxyaalahan u baahanay inaynu shacabka la wada wadaagno adiga anugu waa mas'uuliyadina wada saaran naguna soo biir insha Allah taala aad baan u mahadsan tahay muuqaalkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay soo iska koobnaan doona hadii la haydmo muuqaaladeeni wacyigelinta ah insha Allah taala ee xagga caafimaadka marka muuqaalkeena waxaan ku soo qaadanaynaa maanta hadii la haydmo xagga wacyigelinta ee barnaamijkeena xogta caafimaadka xanuunka la yiraahdo kansarka horena uga soo hadalnay qaybaha uu ku kala dhaco dumarka iyo ragaba hadii la haydmo asagoo si faahfaahsanna waan wadi doonaa hadii la haydmo maanta laakiin xag wacyigelineed been u yar eegana insha Allah taala anoo researchkiisana wada hadii la haydmo marka kansarkan aad cid walba ku dhici karaya maanta walwal badan ayaa laga qabaa rag iyo dumarba awal waxa inagu yar badnaayo kale kansarada ku dhaca xagii dumarka kale ama ilmo galeenkii naasaha xagga ragana prostate-ka waxa la yiraahdo kala u sii badnaa hadda beerkii kala ku soo kordhay maalin walba hadda goobta aan joogo dad Soomaaliyeed ba caafimaad u yimaada 10 qof ku soo mar 3 4 6 baad ka helaysaa oo lagu oranaya kansar baa qabaan hore isku googeen walina war uma hayna xaaladaasi waxa rasmiga ee sababa laakiin maanta waxaynu yar eegaynaa dhibaatooyin aad la nooshahay mar walba deegaankan aad ku dhex aragtid kaasoo khatar badan laga muujinayo warbixinada laga qoray bahda caafimaadkuna ay aad uga sii digayso barnaamijkan inta badan waad maqasheen oo kansarna hadda uu keenaa wali ay socoto cadeymihiisi barnaamijyada xagga inta badan haduu xagga ganacsiga xidhiidh leeyahay aad bay u adagtay in lagu degdego oo la dhaho xaaladaas jirta waayo sababa ganacsi daraadeed iyo kambaniyada haysta marka maanta meel walba aad aragtid oo Soomaaliya kamida ama dad Soomaaliyeed deegaan waxa ka buuxa ateenooyinka dhaadheer ee telefoonada loo isticmaalo barnaamijkeena maanta wacyigelintaas ku saabsanaan doona hadii la hadin iyo xanuunadan laga qaadayo waliba kansarku uu koow ka yahay daraad bay had marnay columns isbuucan idaacad BBC dan engineer ka wareysan Saacad Samil yiraahdo oo aad uga sii digay Soomaaliya dib badan bayna ku haysaa arintaasi magaalo walba aad joogtid hadda tuulo walba aad joogtid 20 30 60 baad arkaysa dhowr kiiloomitir isu jira meelahan hadda aan ku noolahay dhimada arkaysid alla ilaahay hawayada waaweyn baad ku arkaysaa marka ateenooyinkan shirkadaha isgaarsiinta ay isticmaalaan fadlan dhibaato badan bay dadka ku hayaan caafimaad ahaan waliba tayadooda iyo ayagoo ninku xagga ma gelin hadii la hadmin laakiin dhibaatooyin xagga caafimaadka iyo kansarra ay keenaan iyo xanuunaan wali ilaa had aan cadeyn baa laga qaadaa waxaad arkaysaa ateeno dhan oo ka dhex taagan guri reer olole waa la kireeyay xogaa yar la siiyay magaaladii oo dhowr kiiloomitir yar isu jirtan intaas oo ateena ay ka taagan tahay marka hadeerto ateenooyinka inta badan hadda waxa aad bahda caafimaadka ugu walwalsan kansarada laga qaado hadda kale UK oo kale 2019 sanadkan soo dhaafnay ateenooyin baa dhulka la dhigay ateenooyin u dhow iskuul elementary markii ciyaal laga helay kansarada kala duwan oo mid ku dhacay kaliyaha mid ku dhacay xagga maskaxda iyo waliba xubnaha kale jirka waa la dhigay Mareykanka oo kale hadda dood badan baa ka socota hadda gobolkan California oo kale inagu ayaan daro cid ka sii doodaysa malaha oo guriga dhexdoodii baa lagu wadayaa marka waxaad arkaysaan kansarada laga qaaday inta badan waa tumoriska ama xagga maskaxdana way u badan yihiin sidoo kale dadkii waxa ku dhacaya in isbedel ku yimaado xagoodii xubnahoodii jirka oo waxa la arkay dad badan oo la noolaa ama ka agdhawaayo kale in say u joogaan kale dhaqaaq waayeen oo xubnahoodii cagaha kale ama laabitooyinkooda ay shaqaynaynin
oo iyagoo markii hore caadi iskaga bad qabay hooyooyin ka agdhow meesha oo kalena wax ma congenital oo wax ka khaldan yihiin oo kale sidoo kale kansarra aan hore loogu arki jirin waa lagu arkay marka dhibaato badan wali research badan baana ka socda oo arinta lagu halgoobayo laakiin waxay leeyihiin mas'uuliyad iska saareen dadkan hadda ka ganacsada ee meel walba teenada ka dhigay magaalooyin baan hadda ku noolay ma arki karaysid ama hal hadii taad aragtidna waxay ku taalaa highway-ga waliba iyadoo aad masaafo aad u dheer u jirta waayo waxaan radio frequency ma shucaaca ku sii deynayaan telefoonada mar walbana marka telefoonkaada waayo mar walba telefoonkaagu dabkiisu hooseeyo awood badan buu soo jiidanaya inuu radio active badan uu soo qabto marka xanuunkani kansaradaas oo dhan buu keenaa Soomaalideena 90% dadku ku yimaado waxaad arkaysaa oo kansarka qaba si faahfaahada hadlay doona insha Allah barnaamijka kulli dabagalkiisa baan ku jiraa laakiin ilaa hadda waxaanu aragnay ee Soomaalidu waxay ahayd kansar maskaxda kaga dhacay aan la garanay wax sababay laga helay dad ku nool aaga birahaas ku badan yihiin hooyo ilma wax ka siihiin ama qaabkiisu wax ka siihiin ay dhashay dadkiyo lagu yeeno qof wada dhutinay arkaysaa lagu hii ama murqahan oo dhan baa dhacaankii ka dhamaanaya ma ka hayaan intaasoo kansarra noocyadaas oo kale xanuun kala qaad marka ka digtoonow haddii aad u dhowdahayna ka fogow hana u ogolaan xaafidiina inay kasoo agdhawaato ama boos ay ka taagan tahay kaloo gadatid lacag waa la helaa laakiin caafimaadka lama helo dadka mas'uuliyiinta shirkadahana ka mas'uulka iyo maamuladuna il gaara ha ku eegan waa dhibaato aad u jirta aan laga maarmi karin in laga hadlo waliba hadda oo kale research laga sameeyay Ingiriiska oo kale aad bay xiriir ula sameeyeen walina waxa ku socday fitness in aad loo baaro kansarada rasmiga ah keena way barnaamijkan inta badan haduu lacag u soo saarayo kale kambaniyadu lacag ay ku bixiyaan marka insha Allah taala hadda dalka Taiwan oo kale waxay sameeyeen inay caruur ka baareen oo kale la nool aagaas oo kale ku dhaweyd markay barbar dhigeen caruurtii aan ku noolay meesha tiinooyinkaas ka taagnaay oo kale waxay ogaadeen warbixintooda wax midpoint baa inay ka sareyso ama ka tiro badan yihiin kansarada ku dhaca marka insha Allah taala ka digtoonaada hadii la haydmo dadkana ka wacyi gali ogsoonoona dhibaato badan bay birahaasi dalka ku hayaan Soomaalidina kansarka aad buu soo badanaya mar walba xaalad dareentid ama isbedel jirkaagana dhakhtarka la xiriid oo dhakhtarka ku noqo oo isbaan inta aad soconaysid oo ladan tahay dhibaatooyinka aynu soo sheegnay oo dhanba noocyada waliba xagga maskaxdaana u badan tumoriska ku dhaca ama burooyinkaas oo kale aad bay ugu badan marka mar walba la xiriir goob caafimaad hada isbedel aad ka dareentid muuqaalkeenu ugama sii hadlayno inaynu waxyaalaha keena iyo wax la yiraahdo si dhiibliya ee waa wacyi gelin guud mid ka sii faahfaahsan iyo waxyaalaha sababo intaana ka badan waan idin soo gudbinaya hadii la haydmo ee waxaan idin kula dardaarmaya hadii la haydmo ka bulshahan iswacyi geliya meelahaas birahaas ay ka taagan yihiin ka fogaada hatta wax siyaada isku aragtidna la xiriir dhakhtar dadka mas'uuliyiinta ee shirkadaha iska leh dawladuna ka warhayso kansar badan baa laga helay meel walba ay Soomaalidu tagto wadan caafimaad u tan wala la yaaba xanuunada faafayna ugu badan laakiin xanuunkaas aad inoogu badan oo habla iyo dumar iyo wax walba kansarku cid walba uu ku dhici karaya laakiin stage-ka iyo intuusan kugu sii xumaani ayaad baaritaan u baahan tahay meelahaana hadaad ku nooshahayna ka taxadir iskaga guur insha Allah taala inteena muuqaalka xiga ku kulmi doona hadii lahayd ma aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam alaykum